kulanti waxaan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada qaybtii saddexaad ee sheekadii halkudhigeedu ahayd gar jacayl ha la qaado. guriga jawigiisa waxaa ka socday sheekooyin badan. gabadhu waxay ahayd diidan oo gol diidan ayay ahayd. aabbaheed markay aragtana madaxay raaricinaysay, markay ka dhaqaaqdana ninkana nacay iyo mar rabay sheekadu joogtay. odagii oo guriga bannaankiisa fadhiya waxaa timid habartii oo bannaanka ka timid, neeftuurayso oo aad moodda inay magaaladoo dhanba soo eryatay. say u soo ordaysay daal la timid guriga. daal kalena ma ahayne waxay ahayd mootada checkpointigan uga deg, mid kale ka raaca xagga uga deg, mid kale ka sii raaca xagga uga deg. cariiriga beledka ka jira iyo jaamka faraha badan iyo baabuurta aan isdhaafi karin iyo meelaha lagu baarbaaraya iyo culeysyada faraha badan ee jira iyo dadku hadalhaynta ay hayaan iyo wax badan baa habarta maskaxdeeda ka guuxayay. goortii ay guriga soo gashay ayay bilowday sida jeer webi ka soo baxdoo kale ayadoo neef weyn fuuf ka siinayso odagii iyo hadalkii waxay soo martay. halla daal badanaa waaban daalayba sii socayso soca ay dishay bajaajkaan raaca midkaan ka deg, midkaan raaca mid kale ka deg. waaba magaalo daal badanba rafaad badanaa waaba ku silca meeshan aniga. naadhe hee yaad u gabyaydaa maanta? hadda magaaladana kusoo daalay, hadda maadaa war iga hayaba. baraambur baan kugu ogaaya ma gabay baad gashay? hadda waktigaa keenay. beledka ka waran. ma magaalaa jirta meeshaan? haye cagii baa nabslaaday oo biyina galay. guriga haddaad timaad ilaahay baa loo mahadnaqaa, markaa baxydan ilaahay baa la tala saartaa. waa alxamdulilah haddaan soo laabtay. cabsida beledka ka jirtaa saas hee waxaan ku yidhi hee gabadhan aad dhashay hee gabar waa hooyadeeda la yidhiye hee maxaa ula hadli weyse? hadda gabadha waa la hadlayoo adiga maxaad warow ka haysaa gabadhaan oo akhbaara? anigu si hoos waa ula hadlaye. gabadhan anigu markaan la hadla mayana ima dhahda hayana ima dhahda, laakiin wiilka waa diidan tahay inaan ku dara aan rabo. hadda maxaan sameynaa ma la wada hadalnaa haddee? wareedha dhegaysa adiga. hee adaa gabadhan wax la wada, haddaad adiga wax la wadin gabadhan waa ogolaa laheed wiilka. ee adaaba wiilka diidanba. wiilka anigu adeer baan u ahay, gabadhanna inaan ku daraan rabaa. magaaladan dhibkeeda iyo inay iska dugaashadaan baan rabaa, inay aqal wada degaan baan rabaa, owlaadooda inaan arkaan rabaa. hadda waa si fiican oo gabadhaan la hadlaayaa, bal waxir isu galadayo. yaa bal waxir isu gabadhaan la hadlaayaa. maalin walba saasaa tiraa gabadhaan la hadlayaa baa tiraa, marka xagga tagtina waa kula socdaaho odagan qayladiisa sayinla ma waayaha iska dhaadiya haddaad doonta ma iska. sheekooyinkaaga aniga waa la socdaa. xaajir al ahaa ee sheekooyinka aa wadaa dhulka dhig baan ku dhilaa, tartiib gabadhan wax ka dhaadhici. may xaajir al aho gabadha waa la hadlaayaa, saas maaha arrintii qabooji. yaa qabooji arrinta xaaji saas ma ahane. goortii ay odagii ka tagtay cabbaarna sii socotay ayay laftirkeeda waxay bilowday inay tiraahdo wiilkan gabadheeda see loogu darayaa, odagaanaan barnacay, waa kana waa na qasbayaa, hadalna kuma celi karno. keligeed baa hadlaysay ayadoo weliba wiilka diidan, gabadheedana rabta ninka ay rabto in la siiyo. mar kale habarti hadda odagan wuuna qasbaayaahe seen wax yeela, anigu hadda wiilkan ma rabee gabadheeda ninkay rabtaan la rabaahe. hadda maxaan sameeyaa talow? arrinta wallahi way u qasan tahay, xageen ka bilaabaa hadda? hooyadii oo sidii u hadlayso ayaa waxay aragtay wiilkii oo kursi fadhiyo meel meeshaana buug fiirfiirinayo. habartii gabadha waxaa ka dhadhacsan wiilku inuu nin reebaadiyaha uu yahay, nin murakib ah, wax ka dhadhacayna aysan jirin. waxay isku dayda inay wiilka ka dhadhacdo inuu gabadhan walaashiisa faraha ka qaado, gabar kalena ay ayadu u raadinayso, odaganna uu la hadlo ee dhibka badan faraha laga qaado. gabadhina waa ku dhibtootay, anna waa ku dhibtooday. gabadhina waatan kuma ogola inaad iska dhaaftaan jeclan lahaa. wiilkiibay ayadoo salaamaysa hadalkan u raacsan. hooy see tahay? waa la fiican yahay. hadda hooy macaanow waxaan ku leeyahay arrintaan. yaa beriga nuuriya maa shidaysa hay tahay lugahada boorka ka buuxo. warba nuuriya ma shidayna magaaladaan kusoo lugeeya haddaan ku raadinayo maanta o dhane inaan kula hadlaan rabaa hooy macaan, bal aan isla hadalna labadeenna. aniga waa kula hadlaa maalin kastaan isla joognaa, warka cusubo maanta wadaxow yahay. hooy macaano wax kale maahan, waxaan rabay gabadha walaasha inaa iska daysid, mid kaloo ka fiican aan kuu raadiyo. hadda arrintaas ka waran. adeerkee ay siiye iska day hay tahay? adeerkaa iska daa warkiisa, anaa eedada ahoo kula hadlaaye. maxaa dhaco gabarta nin iga fiican maa siihe? adiga waxaas ka baxee, adiga mid ka fiican aan kuu raadina oo ka baarisan midaas. ani maa kasin gabarta ilaan waxay ii diidaysa habartaa ku daaban. yaa maya saas maaha, saasaa u maleen, saas maaha. aniga eedadaaba ahay, laakiin mid kale aan kuu raadina oo ka baarisan oo cagaha kuu dhaqayso. hadalkii markii uu intaa uu marayo ayay tartiib habartii odagii oo soo socday inta aragtay tartiib ka dhaqaaqday.
dhinaca kale waxaa ka socday isna waa wiilkii faysal ahaa isna calaacal kaluu ku jiray wax kale kama uusan calaacalayn dhibaatada beledka taalle iyo gabadhan sidii uu ku heli lahaa sababtoo ah wuxuu ogaa gabadha in xayndaab adag uu ka soo horreeyo oo markaana lala rabo in la siiyo wiil kale markaa oo odaga adeer uu u yahay isagan oo halkaasi ay ka muuqato inay arrintu ay tahay mid cakiran ah meel looga gudbi karaana aysan jirin balse dadaalku uu yahay midaan meesha ka reebanayn gabadhuna waxa uu la socday inay in badan isaga xaggiisa ay u soo shanjeerto laakiin haddii odaga iyo habartu isu kaashadaan waxa uu dareemayay in meeshaas eber ay noqon doonto keligiis baa isla hadlayay ma heli doonaa gabadhan abbooyo oorideeda ma noqon doontaa oo reerkaas mar walba ka mid noqon doonaa sideen wax yeelaa xaggeen u maraa yaan u diraa odagan ka adag oo aan la kaashadaa arrimahaasu keligiis ka hadlayay wallaahi bilaahi waa yaab maalmahan culaysyo badan baa iska jira runtii qoftii aan jeclaa faadumo ahayd ismaanan maqal duruufo badan baa jira magaalada waa iska xiran tahay meelaha kala duwan gaadiidkii waa la baarayaa meelaha qaar in la maro yacni suurtagal ma ahan dhibaatooyin kalena way ka jiraan xaafadda runtii faadumo aniga aad baan u jeclahay odaygii aabbaheedna waxaa weeye hadda waxaa laga sheegayaa wiil adeer uu yahay inuu gabadhiisa ku darsanayo wax aan sameeyo wallaahi ma aqaan yacni cid aan u dira xataa odayga oo runtii ku qancisa in anigii gabadhiisa aan isjecelnahay wallaahi wax aan sameeyo ma aqaan arrinka wuxuu ahaay arrin markaas calaacalkiisu mid ka sii baxsan dad yahow hay la yaabina dabba igu baxayo hees noocaas ayaa dhegihiisa soo gaarayay oo saynab xaaji cali baxsan siigaale ay weliba ay ku luuqayso waana hees markaasi jacaylka si dhaba uga hadlayso wixii isaga hayay ayay ka turjumaysay taasuu dhegta la raacayay una arkayey inay tahay waxa isaga haysto taasoo ahayd dhinaca kale gabadhii saaxiibteeda faadumo waxay ayadu lafteeda ku dadaalaysay in faysal iyo iyo labadooda ay kala qariso waxay si jaanis ku aragtay ninkii faysal ahaayo meeshaan raadiye dhagihiisa markaas dhegtoon u raaricinayo goortii aragtay ayay meeshii ku salaantay isaga ma oga gabadhan balse labadoodu isku bartay tanaase rabto tan kalena waa rabtaa meel wax jiraan lama oga goortii ay aragtay ayay bilowday adiga iyo abbaayo sheekadiinu xaggee bay maraysaa ma sidiibaa kala taag miyaa ma sheekada meesha gurigana waa arkayo mucaarad iyo muxaafad intaba waa lagu wada sugan yahay midba sibuu wax u rabaa sheekay ku bilowday ayadoo markaas ka dhaadhicinayso gabadhanba inuu ka fogaado maxaa yeelay kursigaas mid lagu fariisan karaa maaha boosna kaagama bannaano boosas badan baad heli kartaaye meel kale adeeroo maad ka dayatid iyo sheeko dheer salaantii kadib labadooda dhex marto faysal ii waran fiican ii waran bay see tahay fiicanahay see tahay maxaad iskula hadlaysa kugu dhacay wallaahi walaalay dhibaatooyin badan baa iska jira maalmahan laguma arag iyo adiga xaggee gashay ii waran see tahay
وهجوغو والله الحمد لله أدي فاضم أرمهن كورن بل والله walaalay arrimaheenii meel dhexe iska marayaan hadda fikirkan aad arkaysid aan ku jiray runtii faadumaan aan ka fakarayay habeen iyo maalin aan ka fakaraa dhibaatooyin badan baa iska jira oo anigii faadumo runtii naga dhex oogan oo dhanka familkeeda haba u darnaatee marka laakiin waa laga baxayaa ii waran adiga hadda gabadha saaxiibta ah ee gorma isku kiin dambeysay maanta inaan ku arko waa fiicneed faysal maalin dhawada ay ugu dambeysay iyadoo walwalsan aabaheedna ay ii sheegtay inuu wiil ku darayo adigu marka haddii wiilkaas lagu darayo ee walaalkeed ah maad iska dhaaftid faadumo wallaahi walaalay hadalkaas waa hadal aada ii daqninaya runtii waa ogtahay aniga faadumo ma dhaafi karo aad baan u jeclahay mana yacni noolaan karo baan isleeyahay aniga faadumo daraaddeed marka laakiin waa laga baxayaa dhibaato ma lahan waxaa weeye naf wax jecelna erayadaas oo kale waa ogtahay in ay maaragtay u daran tahay faysal haddii faadumo wiilkaas lagu daro iyadu kaa maaranto boqolaal kale oo ka qurux badanaa magaalada joogto oo adigu ku rabto dantana waxay kugu kalifaysaa inaad kuwaas u jeesato maadaama faadumadii aad jeclayd wiil walaalkeed ah lagu daray wallaahi walaalay waa run aniga hal qalbi baan leeyahay halkaas qalbina faadumaa hadda dhex degan sheekadii markii intaas ay maraysa ayay buugga dhinaca kale u rogtay sheekadooda waxay noqotay maalinkaa mid dheer waxay u sheegtay gabadhaas go-aankeeda inuu soo gabagaboobay wiilkaasna goordhow loo meherin doono isaguna ay habboontahay inuu qalbigiisu celiyo waayo haddii uu isku dhex yaaco cid u maqan inaysan jirin ceelna uma qodna cidna uma maqna inay sheekadu ay tahay keligiisna ay ku ahaan doonto sidaas daraaddeedna ay habboon tahay intay goorigoor tahay inuu ka daydayda magaalada mid kale arrinkaanna uu si tartiiba uga gaabsado haddii kale waxaa meesha ka muuqan karayo in dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaari karayaan hadalkiibay usii badbadisay in xataa agabka arooskooda la diyaariyey iyo hadallo badan bay meesha isku faysal faadumo maalintii ugu dambeysay kolleytaba waxay u ekeyd mid go-aanka aabaheed qaadanaysa oo ogolaanaysa arooskaas haddii aad adiga faadumo israaraaciso kolleytaba adigu unbaa waalanayo oo magaalada bacaha ka aroorinayo marka waxaa habboon inta aadan waalan in aad adna isceliso oo aad ku fikirto inaad heli karto qof kaleeto adna nolosha kula wadaaga intaas markii hadalka uu marayo ayay mar kale qiso kale u rakibtay weliba mid ayada soo martay waxa ay u sheegtay in sidaanoo kale ay wiil isu rabi jireen laakiin wiilkii lagu daray gabar kale muddo dheerna ay rafaad badan ay la soo martay jirkayga sida aad hadda ka arkayso ma uusan ahaa jirin 3 dhig igama joogo qaybo badan baa iga maqan dhibaatada aan ka soo maray anaa og goor dambaan ka caafimaaday sidaasoo kale inaan noqoto ma rabo anigoo adiguna isku mid baan nahay isku doon inaan saaran nahayna ayaad moodaa hadalkii sarbeeb kale ayay dhiibtay ayadoo dhahayso faysal horta arrintan oo kale hadda ka horena igu dhacday wiilaan is jeclayn muddo markii aan isla soconay gabar kale walaashiisoo miyiga laga keenaa lagu daray anigan aa ii jeedid intaan lama ekaan jirin waxaan ahaa qof buuran haddana intaan la ekaa ujeedaa marka waxyaalaha qaar waxaa fiican in laga tanaasulo adiga unbaa soo harayo haddii aad niyadaada raacisana adiga unbaa dhammaanaya marka aniga adi waxaad moodaa inaan isku doon saarannahay oo hadalku markuu intaa marayo ayuu mar kale isagoo weliba hinqanaya waxa uu yidhi intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa akhyaartaa wada naga dhegeysanaysaa qaybta 3aad ee sheekada halkudhigeeda ahayd gar jacayl ha la qaado intaynu qaybta xigtaa aynu ku kulmayno waa dhammaanba asxaabtii radio Shabeelle oo idinku dhaafayso sidaa iyo nabadgelyo